إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. hooyadiis buu baangad ku dilay waxaana sabab u ahaa odibeeleedka. walaalaha sharafta lagu soo dhawaada barnaamijkii nolosha dhabta oo inkaga soo baxa magaalada London. waxaan rabnaa cashir inaan ka qaadanno waxa ka dhacay magaalada Wajeer ee Kenya. wiil baa hooyadiis wuxuu ku dilay baangad. intuu hooyadiis dilin ka hore 2 nin oo kale ayuu weeraray sanadkii hore, midna waa dilay midna waa dhaawacay. ninkaasi waa la xiray. waxaa soo daayey oo la oleeyey odayaashii. marka aakhirka dambe hadda hooyadiis buu dilay. marka odayaasheenna Soomaaliyeed oo sharafta leh waxaan la yaabanahay dulmiga qof ma ay ugu hiilinayaan. qofaa dulmi galay, qof buu dilay, waxaa la leeyahay dhiig baa la bixinayaa. shayga ugu horeeya oo lagu ordayay waa dhiig 100 geeloo neefka ah, sababtoo ah 100 neef oo geela ah ciddii laga dhintay ma qaadanayse say u badan tahay waxa qaadanaya odayaasha. wiilkan hadda hooyadiis markuu dilay oo intuusan dilin ka hore qof kaluu dilay waa la xiray, dad baa u ololeeyey. markaan إلهي سبحانه وتعالى محوكله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إلهي وحو إن أمره عدالة إنه بدناتان عدالة إيه إحسانك وناقة إنا قرابة وحسيسان وحريرسان حمانتا إلهي سبحانه وتعالى يفحش قروا وإن كريب سأقوا أنتونتان. أنا waxaan la yaabana odayaasha Soomaaliyeed say u badiyihiin waa qaar fiican waa jiraan ugu say u badiyihiin haddii qabiil ama isku dhaca ama mataqaanaa qoys isku dhaca ama haddii kale gabar nin diido waxa dulmiga ka talinaya oo markasta faataxa la ordaya faataxa lagu dulmiyo ummadda waa oday Soomaaliyeed. faataxadii Ilaahay soo deji oo 7 mathaani ku magacaabay oo runtii mataqaanaa maxay ahayd salaad Ilaahay lagu dukado. oday Soomaali wuxuu ka dhigtay inuu ku abiyus gareeyo oo mataqaanaa ku cadaalad falo ummadda Soomaali dhexdeeda. markaan maanta hadda waa ka wiilkaas hooyadiis buu dilay, wuxuu ku dilay weliba masaar faashad buu ku dilay. marka waxaan leeyahay odayaasha Soomaaliyeed fadlan waa inna baryaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa fiiriya idluhu aqrabu litaqwa, cadaaladda fiiriya. waxaan ogahay gabar nin diiday oon arrinteeda goobjoog u ahaa oo aabbaheed uu yidhi toori buu halkan ka saaray, toori say anigii sheegtay, toori buu halkan ka saaray, qasab waa inaad guursatid. odayaal kale u soo yeertay gabadhi waxaa lihi faataxada lagu marayaa. kalaa kulli hal gabadhi faataxada loo maree faataxa qasab ay aheede waa qaadatee 4 carruur ka dhalay. kabacdi wuu iska dhaqaajiyey, ma biilna waxma biilnay. markii kabacdi haddana waxaa weeye waa ninkii waa iska tagay suuqiisuu xulay. waxaa la yidhi mataqaana ninka hadda waa soo noqday. ninkii wuxuu yidhi odayaal u soo yeertay ha laga odayeeya. walaalaha sharafta arrinteeda anana ku jiray. waxaan ku idhi ninkan miiquu maqnaa 2 sano. 2 sano gabadha intaan ku celin ka hore biilka ha laga soo qaada 2 sano. biilkii 2 sano lagu lahaa gabadhaan ma biilay intaanan ku celin ka hore gurigiis u hagaajinin ka hore biilka la soo qaado. odayaashii dhan say u badiyihiin hal nin mooye waa laga hor imaada. waxaad keenaysaa sharci cusub. war ninkan ilaahay liyunfiqdu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyuqma ataahu Allah soo ilaahay ma dhihin. gabadha ninka inuu bisho ma ahayn soo kama tegin. gabadha hadda waa diidanta ninkii waayahay hadday diidan tahay mar hore toori baa loo qaatay oo qasabaa loogu daray, haddana waa diidan tahay. markaan allis aan ku sabarsiina biilkeedaan ugu qaadna 2 sano waa liiga diiday. calaa kulli xaal 5 saac markaan fadhino arrintu waa ku kala dareernay. gabadhi baa la keenay. gabadhi waxay tiri maya. odayaashu waxay ku celcelinayaan faataxadan kuu marno in adeeryaa ilaah idinku dhaarshay bal ka warrama faataxadan kuu marno.
gabadhi waxay leedahay war hadda ka hor faataxa ii marteen faataxadina waxaana ka dhaxlay 4 carruur liiga tagi waxaad diinaysa war raali noqdo marna gabadha qalad ninka waa qaldiya lama dhahay waa dhaqan jira dhaqanka marka in la bedelo waaye waxaan rabno waxaa waaye dhaqamo aan u maray inuu fiican yahay oo xunaa jira ummadda Soomaaliyeed waa inaan wax ka bedelno waaye waqti dheer ay qaadanaysaa warkii oo kooban gabadhi markay diidi ilaa hadda ninkii naa kale iska aroostay gabadhi weli waa ku xiran tahay waa dulmi waaye waa dulmi caadi ah waxaan leeyahay war kibir ahaaye naa kale guursay iidan waa imaadi doontaa iidaa soo degi doonta maya haddaa shalim haddaraa toor u qaateen hadda tan waa la mid gabadhan wiilkan hooyadiis dilay odayaal baa ka tiliyey waxaa la yidhi odayaalaan nahanay annagaa mas-uulka wiilkaa la soo daayay waa la soo daayay maanta hooyadiisu ku tagay haddaa la baraarugaya haddana waxaan aaminsanay in laga odayayn doono haddana asoo 2 qof ku maqan yahay hooyadiisa wiil ku maqan yahay oo wiil la dhaawacan yahay in haddana laga odayn doonaan oga anigu koos dhaqankeena Soomaaliya ama dhaqan ku salaysan mataqaanaa saas u badan yahay waa odayaalana xukume dulmi ku salaysan waay marka waxaan leeyahay odayaasheena Soomaali meel ka joogtaan odayaasha sharafta leh oo dee waa kuwa hore oo garta goyn jiray oo gar walaal ma la dhihi jirto oo garta sayta u goyn jiray waxaan leeyahay walaalayaalow ilaahay intaad ka baqdaan dulmiga aad mataqaana ummadda dhexdeeda ka wadaan ha la joojiyo cadaaladda fiiri xataa keligaa dhinac mar cadaaladda fiiri marka intaasaan kusoo koobayaa insha allahu tacaala waxaan filayaa ummaddeena Soomaaliyeed inay ku soo noqon doonto yacni barwaaqo iyo bashbashiisa ay ahaan jirtay waagi hore cadaaladda hore laga shaqayn jiray oo kale oo qofka xaaraanta ka baqi jiray waana ku soo noqonaysaa laakiin waxay u baahan tahay wacyigelin guud iyo dadka odayaasha iyo adiga haddaa saxan tahay hadda anigu alxamdulilah maalintaas iidan garta u fadheenay waa saxnaa gabadhina calaa kulli haal ilaa hadda ninka waa ku xiran tahay dee ani meeshii ma joogi waana yacni wax kaloo fara badan iska jira oo mataqaanaa hadda aan ka hadli karin fasaqaa ka mid a culammadeena Soomaali gabdhihi inay fasaqaan ma rabaan naftooda ka mid a mar kalaan ka dhigin doonaa insha allahu tacaala laakiin ninkan hadduusan naagtii biilinaynin carruurta la korinaynin wuxuu u haysta waa max marka mar kalaan ka hadli taas ayda dulmigan faraha badan walaalayaalow seen ku joojinaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin xifdiya waxaan ku darsanayaa maanta ma la socday caafimaadkii inna linafsika calayka xaqu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam naftaada xaq bay kugu leedahay xaqeeda sii weliba dadka qurbaha jooga keliyaha dad ka xanuunsan tahay sokor mataqaanaa dhiigkar kolostron haddaa qabtid waxaad u baahan tahay exercise fara badan iyo biyo badan wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun ilaah dhahay biyaha nolol baan ka dhignee si fiican u cabbe biyahaas weliga ay ka dheeraan agtaada marka ilaahay subxana wataala idin xifdiya walaalaha sharta waxaan ka codsanayaa fiideogan ummadda Soomaaliya la sii gaarsiiyo si markaan cadaalad loo helo insha allahu tacaala qof unbaa kuwaana qaadan doono ee adiga mataqaana iska gudbi saas ajir ku hesha insha allahu tacaala markaan yani waxay dhihi jireen share and subscribe ha dadka adiga igu xirnaaw hadday waxaan soo gudbina ku anfacaana qaada haddii kalena iska daa laakiin adiga sii gudbi saas ajir uga insha allah man dalla calaa khayrin ka faacilihi qofkii khayr dadka tusubiya oo qofka tuso waa asagoo suubi oo kale ay la mid tahay ajraad ka helaysaa hadda oday Soomaali haddaa video u gudbis oo markii dambe soo gar ku jiro dhaaniyo ani ma yeelay ajr baad ka helaysaa barakallahu fiikum salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu